dhawaan bay ahayd markii hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland ay ku qabatay madaarka caalamiga ee Cigaal International Airport daweyn si khaldan loo soo galiyay dalka kuwaasi oo daweynka loo yaqaan Capsosha oo maran dawooyinkaasi ayaa waqtigaasi gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada waxa warbaahinta uu sheegay inay hay'addu baaritaan ku sameynayso sababta loo soo galiyay dawooyinkaasi been abuurka dalka isla markaasna sidoo kale ay hay'addu baaritaan ku sameynaysay shirkadihii dalka soo galiyay xogtoodana la wadaagi doonto shacabka marka ay soo dhamaato baaritaanadaasi haddaba hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland si rasmi ah waxay u xidhay dhammaan ganacsiyada Al-Huda Herbal Medicine kuwaasi oo ay sheegtay inay ahayd shirkadii dalka soo gelisay dawooyinka been abuurka ah warqadda mamnuucidda oo ku saxnaa gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland Mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf warqadda ayaa waxa lagu yiri Al-Huda Herbal Medicine og wasaaradda horumarinta caafimaadka og wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska og wasaaradda arrimaha gudaha og gudida dhawrista tayada og xiriirlaaliyaha guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland og madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedo xidhis ganacsiga Al-Huda Herbal Medicine annagoo tixraacayna xeerka hay'adda dhawrista tayada qodobkiisa 9 iyo 30 ee dambiyada iyo ciqaabta sheegaya qofka lagu helo inuu soo saaray si warshadaysan soo dajiyay qaybiyay iyo ama si uun uga ganacsaday dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudihiisa badeecaan waafaqsaneen heertayeedka la waajibiyay ee xeerkan jideenaya oo lagu ilaalinayo wax kasta oo bulshada u keeni kara caafimaad darro waxa jirtay inaad wadanka soo geliseen oo waliba qariseen Capsule maran oo aan wax daawo ah ku jirin ayaa lagu yiri warkani qoraalka ka soo baxay hay'adda dhawrista amarkan oo sii socda ayaa sidoo kale waxa lagu yiri kaas oo khatar ku keeni kara bulshada reer Soomaaliland Capsule maran waxa noogsoonay in lagu guraayo daawooyin aan la garanayn waxay tahay taas oo khatar kale ku noqonaysa caafimaadka bulshada waxa jirta daawooyin kale oo aan idinku xidhnay inaad keentaan waraaqii cadeynayay daawadooda iyo halka lagu sameeyay iyo tayadoodaba markaan aragnay warqadii oo aan waafaqsaneen shuruudihii aan idin sheegnay markaan aragnay khatarta ay keeni karto daawooyinka aan la hubin iyo Capsule maran oo loogu talagalay in lagu shubo daawooyin aan ogeyn waxay tahay kadib markii hay'adda dhawrista tayadu sameysay baaritaan qoto dheer iyo xog ururin baaxad dheer waxay hay'addu go'aan ku gaadhay in taariikhda 16 bisha 1 2019 in la xidho dhammaan ganacsiga Al-Huda Herbal Medicine waxaanu faraynaa laamaha dawladda ee kor ku xusan inay ka gutaan waajibaadkooda ku aadan fulinta go'aanka la xiriira ganacsiga Al-Huda Herbal Medicine waxaana ku saxnaa warqadani gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland Mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf Luqmaan Maxamed Farax Bulsha TV Hargeysa